Kia waa maxay? Sidoo kale waxaa la dhihi karaa ma tahay ma yahay. Hee weeye ama waaye ayaa laga wadaa. Tumhara ama tumhari. Aabka ama aabkii waxaada ayaa loola jeedaa. Tumhara waa lab, tumhari waa dhidig. Aabka waa lab, aabkii waa dhidig. waxaada ayaa laga wadaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa koorsada lagu baranayo luqadda Hindiga. Casharkiisii 14aad waa koorsada bilowga ee luqadda Hindiga. casharka waxaa akhrinaya anigoo ah Macallin Cabdiqaadir. aan bilaawna hadaba. Mee waxaa laga wadaa aniga. Mee ayaa lagu dhawaaqayaa. Mee qoraal ahaan waxaa ku jirto meesha dambe ama qoraalka dambe xarafka n, balse dhawaaqeedu waa mee. Mee aniga ayaa laga wadaa. Ham annaga. Ham annaga ayaa laga wadaa. To tum aab aan ku celiyo. To tum aab. saddexdan eray waa isku micno. To adiga ayaa laga wadaa, laakiinse waxaa loo isticmaalaa qafka yar. Tum adiga ayaa laga wadaa, laakiinse qaf kugu faca ama qaf dhigaaga ah oo isku da aad tihiin ayaa loo adeegsadaa tum. ciyaalka xaafadda oo kale tum ayaa loo isticmaalaa. ereyga kale aab looma isticmaali karo ciyaalka xaafadda. waxaa loo isticmaalayaa dadka sharafta ka mudan, waalidiinta, macallimiinta, dhaqaatiirta iyo wixii la mid ah. qof aad ixtiraamaysid ayaa loo isticmaalaa. isaga af Hindi waxaa lagu dhahaa ye, ama sidoo kale waxaa lagu dhihi karaa wo. Wo ama ye. Ye ama wo waxaa laga wadaa isaga. sidoo kale iyadana waa dhihi kartaa ye ama wo. markii aad rabtid inaad dhahdid kan ama tan, sidoo kale alaabta oo kale, kursiga, waxyaabaha nool sida jiirka, bisada, waxaad isticmaalaysaa ye iyo wo waa isticmaali kartaa. bisad, ey iyo wixii la mid ah, xayawaan noolaha meesha hore ha ka yimaado, waxaad isticmaali kartaa ye iyo wo oo laga wado tan ama kan. ama markaad dhehayso kale iyada ama isaga, oo markaas aad ula jeedid bisada iyo eyga. ha anagu waan dhahnaa luqadeena Soomaaliga. Hindiguna ha ayay dhahaan, laakiin qoraalka waxay ku daraan n ama na ayay ku daraan. haan ayay u qoraan. ha ayaa loogu dhawaaqaa, micnaheeduna waa ha. maya af Hindi waxaa lagu dhahaa nahi. nahi qoraal ahaan n ayaa u dambeysa ama na, laakiinse waxaa loogu dhawaaqaa nahi oo laga wada maya. ereygan kale ayaan galaynaa. ana imaansho ayaa laga wadaa. ana imaansho, laakiinse marka aad qof amraysid oo aad dhihaysid imaw, ereyga ayaa soo qaadanaysaa marka hore, kadib waxaad ku daraysaa o. aw ayaa ugu dhawaaqaysaa oo laga wado imaw. aw ama aiye imaw.